بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxay ahayd maalin taariikhi ah waxaa furmayay kalfadhigii toddobaad oo ah kalfadhigii ugu dambeeyay ee baarlamaanka labadiisa aqal oo muddaxileedkiisu uu dhammaanayo November sanadka hadda ku jirna 2020 waxayna ahayd khudbadii ugu dambeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dastuuriga ahayd uu jeedinayay labada aqal maadaama muddaxileedkoodu uu sii dhammaanayo si loogu sugay madaxweynaha inuu la imaado qorshe waddanka xaaladdu marayo ayuu madaxweynaha wuxuu ka jeediyay meesha khudbad aan la jaan qaadi karin dalka asagoo aan ka hadlin dhibaatooyinka taagan asagoo aan ka hadlin amniga waddanka 4 sano la joogay al-shabaab aan laga xoreynin asagoo aan ka hadlin dadkii lagu laayay shabeellada dhexe ee loo xasuuqay khaatirta ahaa asagoo ka hadlin badii ummadda Soomaaliyeed oo mar walba dib loo dhigayo oo hadalkeeda uu soo qaadin asagoo ka hadlin doorashada waddanka ka dhacaysa iyo dawlad goboleedyada dowladda federaalka xiriirka ay leeyihiin asagoona ka hadlin arrimihii dastuuriga loo igmaday ee xildhibaanada federaalka ah aqlabiyadooda meesha jooga wax yar mooyaan intooda badneed arrintaasi aad bay u dhibsadeen waxayna ka hor imaadeen waxayna muujiyeen dareenkooda ah in dhibaatada ka socota iyo ciidamada lagu daadguraynayo dowlad goboleedyada lagu xasuuqay dadka sala socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku xasuuqay shacabka Soomaaliyeed magaalada Baydhabo wuxuu ku xasuuqay magaalada Dhuusamareeb wuxuu ku xasuuqay magaalada Badaxaaw ayuu ku xasuuqay ciidamada shisheeye ee ciidamada dowladda federaalka siyaasad uu isticmaalay waxaas oo dhan oo taagan oo wuxuu dhibay muwaadin Soomaaliyeed oo Itoobiya gacan ugu gali ilaa hadda uu ka hadlin wuxuu ku soo daadguraynayaa Soomaaliya ciidamo nan amisoona ama dheed ku joogin wuxuu isticmaalayaa dhaqaalihii iyo amnigii iyo awoodii dawladeed oo gabaabsi ah wuxuu isticmaalayaa in Soomaaliya ay ku laawato dagaal sokeeya waxaa maqan Somaliland waxaa maqan Puntland waxaa maqan Jubbaland waxaa maqan dowladda goboleedyada kala dowladda federaalka ayaa maqan maanta waxaa ka muuqatay meesha inay joogin hataa gudoomiyaashii baarlamaanka dowladda goboleedyada badankooda maan imaanin kalfadhiga maanta waxay cadeynaysaa midnimada waddanka inay khatar ku jirto iyadoo saas ay tahay madaxweynaha wuxuu meesha kaga dhawaaqay in dastuurka Soomaaliya la jabiyo oo ah macnaheedu in la bedelo qodobka 72 ee dastuuriga in la jabiyo asagoo 89 awoodiisa sababtoo ah wuxuu ku dhawaaqay Soomaaliya waa parliamentarian system wuxuu ku dhawaaqay in baarlamaanka la baabi'iyo oo shacabweyne ay cod u dareeraan iyadoo ognahay waddanka inuu al-shabaab uu haysto halkii lagu qaban waayo maanta aan ku qabanay kalfadhiga labada aqal xarunta Villa Hargeysa iskool booliisiya waxa lagu qaban waayay amni darro liajligeed lagu qaban waayo laga cabsaday in hooyo lagu soo garaaco ayaa waxa uu leeyahay oo xalay saxda dhexna loo soo diray SMS la leeyahay waa la baajiyay iskool booliisiya in lagu qabto kalfadhiga labada aqal sababtoo ah arrimo amni iyo arrimo farsamo awgood taasoo ah iyadoo laga cabsanaya meeshaas in amni darro ay ka dhacdo iyadoo saas ay tahay muqdisho iskool booliisiya lagu shiri laayahay ayaa waxa uu leeyahay shacabweyne ayaa dareeraya codaynaya taasoo macnaheedu ay tahay extension in la aado la dheeraysto dastuurka la bedelo loo gudbo dictatorship waddankana la geliyo xaalad khatar ah hadalladiisu waxaa ka mid ahaa oo laga dhadhansanayay in dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ummadda ay ku heshiisay in la jabiyo taasoo Soomaaliya gelin karta dagaalka sokeeye dib u dhac ummaddu waxay ku heshiisay dastuurna waa heshiis bulsho lama bedeli karo bulshadii ku heshiisay ayaa soo imaan karta oo bedeli karta arrintaas uu ku dhiirigelinaya ummadana waxa weeye arrin ah khatarteeda leh khatar gelinaysa wadajirka ummadda Soomaaliyeed khatar gelinaysa badqabka ummadda Soomaaliyeed khatar gelinaysa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxa noo haray waa 4 bilood 4 bilood waa in doorasho la aadaa waxaan leenahay noo dheeraysi waxaan leenahay Soomaalidu waa inay soo imaataa ee doorasho aadaa wixii lagu qawaay 4 sanana 2 sano oo la dheeraystay laguma qabanay ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay haddii nabad in nolol wax qabatay haddii wax qabaninba waqtiga ayaa sheegayo wad mahadsantii